السلام عليكم ardayda quruxda badan ku soo dhawaada 10 kilo English ah 10 kaana waxaan rabaa inaan ku sharxo if iyo whether waa laba eray labada eray isticmaalkooda iyo waxa loo isticmaalo rabaa inaan ka hadlo oo sharaxo si guud iyo si kooban araba inaan u sheego number 1 if markii laga hadlayo waxay tilmaamaysaa ama ka hadashaa sharaxdaa condition waxaa la yiraahdaa waa shuruud ay markii shuruud laga hadlayo ama shay ay shuruud bil shardi laga dhigayo waxaa la isticmaalaa if sidoo kale waxaa af Soomaali lagu yiraahdaa lacala saas iyo saas dhacan saas la sameeynaya waxaa la isticmaalaa if sidoo kale whether markii la isticmaalayo waxaa loo isticmaalayaa two options two choices markii la kala dooranayo laba options ama laba kala daran mid door camal markay tahay ama laba ikhtiyaar ama laba option afsamaan hal laba doorasho marka doorasho leedahay laba shay adiga ikhtiyaar u leedahay inaad kala dooratid ayaa la isticmaalaa sidoo kale si guud markaan sharaxayno labadan eray oo if iyo whether waxay ka hadlayaan they talk about uncertainty or unknown things or they show doubt labadaba waxaa loo isticmaalaa markii wax aan la hubin ama shay aan la hubin laga hadlayo ayaa la isticmaalaa sidoo kale labadooda waxaa loo isticmaalaa markii reporting yes or no questions yes or no questions waxaa laga wadaa tusaale ahaan oo kale labadan eray markii la isticmaalayo waxaa loo isticmaalaa werinta ama tabinta wax dhacay ficil dhacay ama arin qof hadalkiisa marka aad soo warinaysid ayaa la isticmaalaa for example indirect speech waxa la yiraahdo ayaa lagu isticmaalaa labadooda tusaale ahaan oo kale hadda waxaan leeyahay are you coming markaan dhaho waa hadal toos direct speech ayaa lahaa markii la soo tabinayo waxay noqonaysaa she said or he said or he asked if I was coming wuxuu i weydiiyey tusaale ahaan aniga qof wuxuu yiri are you coming أنا قف يقول هاي قف كنا قنكر قف دمرة أما قف نينا أو رجع so قف بحوير أيو كمن ميمانة سوا وهذا التوس على اللي ويدينا يا so أنا جي ويدين تلي ويدي وقف كلا أشيء يا so أمرك حالي هاي هدي قف الدمرة هذا حالي she asked وهي ويدي say if I was coming in an إيمانة يو أي ويدي say أو هاي استعمالي كراوذا حالي هاي she asked me or she asked whether I was coming waxay weydiisay in imaana in kale ayay weydiisay iyo afsoomaal noqonaa so hadaba direct speech iyo indirect speech waan baran doonaa casharadana xiga ayaan ku baran doonaa laakiin isticmaalka if iyo whether ayaa loo isticmaalaa